wafdiga ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada ka jira dalka una hogaaminaya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo wafdiga ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland oo hogaaminaya wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish soo dhaweynta wafdiga kadib ayaa waxa ay mas'uuliyiinta bahda saxaafadda kula hadleen hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo wafdiga soo dhaweeyay aan ku soo dhaweeyno wafdi ballaaran oo hogaaminaya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha wafdigaas oo ka kooban wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Puntland iyo xubno kale oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda gobolka Banaadir iyo gobolada Hiiraan iyo Jowhar aad baan waxaan ugu faraxsanahay wasaaradda aniga madaxdii ahayd iyo wasiiradii dhigayga ahaa inaanu maanta Kismaayo ku martiqaadno ay noo yimaadaan aad baan runtii aniguna si gaar ah ayaan arintaas ugu faraxsanahay oo qadarinayaa waxaan rabaa inaan iraahdo soo dhawaada waxaanu toos u bilaaban doonaa barnaamijkeena oo nabadgelyo waqtina waxayn waxaa sidoo kale hadalka qaatay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Dr. Yaxye waxaana uu yiri waxa xaqiiqo ah kulanka kan dabcan oo ka dhici doona 3 maalmood ka socon doono Kismaayo oo ku salaysan wada tashi ay wada yeelanayaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo gobolada aan wali yeelanin hanaanka federaalka oo looga wada tashanayo arrimaha khuseeyo wasaaradahaas isla markaasna dabcan ay soo qaban qaabis wasaaradda arrimaha gudaha ayna marti gelisay dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland waxa dabcan qof kasta ay dareensanahay maadaama Soomaaliya federaal noqotay inay muhiim tahay markaan in laga hadlo hanaanka ugu wanaagsan ee loo hirgelin karo qaabkan qaabka dowladeedka federaalka ah waa farxad ay noo tahay mar kale mudane General Darwiish soo dhaweyntaada adiga iyo maamulkaagaba ilaahay idinkiisna dabcan magaalada waa sii joogi doona ilaa 4 maalmood laba barnaamij baan u nimid kulankaana waa kulan horay bishii November sanadka hore uga dhacay magaalada madaxda Muqdisho gobolada kale ee dalka maamul goboleedyada ay ka jiraan ka dhici doono nasiibkii ugu horeeyana waxa uu yeeshay dowlad goboleedka Jubbaland in ayadu ay marti gelisay markii ugu horeysay wafdigu wuxuu ka kooban yahay 26 xubnood si kastaba ha ahaatee maatinka wafdigan ayaa ujeedkiisa lagu sheegay ka qaybgalka shir looga hadli doono arrimaha federaaleynta Soomaaliya kaas oo la filayo in maalinta berri uu ka qabsoomi doono magaalada Kismaayo Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.